أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. walaalahayga sharafta badan, walaalahayga muslimiinta, walaalahayga mu'miniinta, aadan uga xumahay markasta inaan maaragtay waxa aan jeclahay aana soo gudbin. runtii waxaan joogaa Soomaaliya, intii muddaba hadda Soomaaliya joogaa. waxaan ka joogaa Soomaaliya Muqdisho banaankeeda, magaalo yar. hadda ka horna waan soo duuduubay meel la dhaho Markasul Sunna oo ceelasha biyaha 7 kiiloomitir u jirta. walaalahayga sharafta leh, waxaan ahay hooyo hadda halkan usoo hijrootay, runtiina usoo baxday in naftayda maaragtay aan horta ku dadaalo caafimaadkayga. marka saas ay tahayna waxaan rabaa ilaahayna inuu shaqeeyo, qof samafala ah oo dadka caawisa, waxyaalihii aan awoodo waddankayga ka caawiyo, wixii fikrada meeshaan joogo marka iyo meelaha kaleba. marka walaalahayga sharafta leh, waxaan aad iyo aad idinkaga codsanayaa inay igu caawisiin inaan ku guuleysto intaan mowdka ii imaan insha Allah. waxaan rabaa inaan ku guuleysto. kasoo qaad hadda waxaa noo imaado dad tuugsanaayo, waxaan dhahaa maxaa idinku kalifay? waxay ku dhahayaan wax la-aan. qof wuxuu ku dhahayaa waa meeshii aan ku noolaayen kasoo tegay. marka halkan waxaa imaada ceelasha biyaha, marka dhowrkaama ku yaala miyaa ma aqaan, weli ma tegin. way iga bajiyeen xoogaa. marka waxaan isleeyahay amaanoo dad wata tagaa meeshii aan soo fiiriya horta. marka walaalahayga sharafta leh, waa sax baryadii waa idinku badatay, meelo badan waxbaa looga aruuriyaa dadka. hadda laakiin ramadaankii aa noo soo galaayo, waxaan is iri hooyooyinkaas iyo dadkaas dhibaataysan soo fiiri. qalbigayga ma isiinaa inaan iska aamuso saan isaga soomo oo shib iska dhaho. magaalada aan deganahay, meesha aan deganahay, markii aan masjidka aan u tegay oo la tashtay hooyada maartay mas-uulka ka ah, aan ku iri walaalo saasaa jiree, waxaan rabi lahaa in layla aruuriyo raashin iyo waxyaalahaas oo meeshii soo salaano. markaskii waxay dhaheen meeshan hadda anaga aan deganahay baa masaakiin iyo agoonba ka buuxdaa, haddii aa waxaad caasinaysid nala maartay nala sadaqaysado. hal famil qaadatayaa anigii marta igu soo jeesteen. marka anigiina ma rabo inaan kasii jeesta arrintaas kale, halkan anoo la kula jiro halkaasna inaan tago fiiriyo. marka xoogaa dadkii halka Soomaaliya markii la joogo, xoogaa dadkii negative wax yar maartay waa lagu qofkii waxa la rabaa moogta wax markuu kuu soo jeediyo in la dhaho maasha Allah wax fiican aad samaynaysaa, go ahead sii wad shaqee, waan kula garab galaynaa, waan kula aruurinaynaa raashinkii at least moogta ilaahayna rasaaqadana isagaa ka faal qaaday. marka walaalahayga codkayga maqlaayo, haddaan ehel lahay, haddaan walaal nahay, haddaan maartay qof yaqaana, qofkii maartay raba xataa inuu hawshaas u gobol qaato, meel kasta oo joogto waa ku barya adiga xataa isxilqaan. magaalada aad joogto, tuulada aad joogto, dadka masaakiinta iyo dadka agoonta u kac, caawi waxaa awoodid, fikradda awoodid keen. marka walaalahayga sharafta leh, runtii wax ma soo duuduubo. hadda xagga dhibcaadada rabaa inaan u jeesto aad iyo aad, siiba qur-aanka isku soo duceyno. qof qofkii raba inuu wax soo diro oo igu soo hagaajiyo oo biidnillah mustaqbalka anigana video aan kasoo duubiyo, waxaa igu soo maartay aan soo dhigi doonaa telefoonkayga, aan kusoo xiri doonaa, ama Facebook messengerkayga igala soo xiriiri kartaa.
inkastoo telefoonka dadka uga fududahay insha allah oo kusoo lifaaqaya telefoonkayga oo yar maaha kan internetkana waa kusoo xiri doonaa asagana, laakiin kan caadiga yarkan aniga aad ugu isticmaalaa lacag soo dirowga. marka wuxuu kaa intaasaan rabay inaan ku beeriyo. waa habeenbarkii waqti 1:00 iyo xoogaa 2:00 wax yar nooga dhiman mardhawaan soo toosay. marka waxaas abal ka gaarsii qof kastana wuxuu aakhiradiisa u dhigtay uu leeyahay. aakhirad wuxuu u dhigtay buu leeyahay. adduunkii aakhiradana ilaahay hanoo hagaajiyo. marka walaalayaal waa iga gaabinina wax ila qabta. garbaa markas la aha garab ma haysti, bliis garab ii noqda inaan waxaan ka rumeeyo. far kaliyana fool ma dhaqdo, wasaa inii sheegay. garab ii noqdo, garabkiina allaha gale. jasaakallaahu khayran jasaakallaahu khayran. abaalkiina ilaaha gudo, muraadkiina ilaaha sahlo. ilaahay ramadaanka noo soo socda barakadiisa iyo khayrkiisa nagu soo aadiyo. waxaa la dhahaa 13 beri bisaa ka dhiman. already hadda caawa habeen maalintii soo gashay adi 12 beri camal. haddii beri lagu daro 13 beri miya. marka aad iyo aadaan inii jeclaa walaalahayga muslimiinta. wadankeena aad u qurux badan yahay wallaahi alcadiim. waa paradise dunya waaye. just waxay u baahantahay wax yar inaan nadiifsano, wax yar inaan u kacno. maasha allah. marka wax alla waxaa iga caawin kartiin oo wadankan aniga aan ka caawin karo. ilaa qofka markii asagana la caawiyo garab istaago asagana wax sii caawin karaaye. waa ku kaahadi walaalayaal. insha allah videoga sii shargareeya. insha allah messengerkayga igala soo xiriira. waa ku kaa iskaalmaysano. magaaladan aan deganahay waa magaalo diineed. qofkii raba ilmihiisa inuu soo wato soo hijroodo xataa wuu ila soo xiriiri karaa. more information aan siin karaa. ha isku iloobin qurbaha. waa ku barya ha isku iloobin. intaa dhalinyartaa tagso tag. aniga aada isugu iloobay 30 iyo xoogaa aan joogay. marka am sorry waa ka xumahay in igu gaartay intaas. laakiin qadar allah maasha wax ma la celin kara. waa ku barya qurbaha isku iloobin. wadankaaga hooyo soo noqo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.